waa tira sagaaliya adduun toban magaaraan ninka soo tallaabsaday arriga waa ka tegayaa maraa lagu talaal wuxuudna waa lagu tartiibshaa xabaal baa inta lagu tegtega lagaga tooray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دغستيال meel kasta oo codkii guud ka soo gaarayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo suugaalka ee Qalinsoor toddobaadkana dhageystayaal waa qaybta saddexaad iyo taxanihii suugaaneed ee abwaan maxamed xuseen jaamac oo xikmaawi loo garadho yahay waxaana waraysiga toddobaadkan inuu ka siyaanba qaadi doonaa halkii hore uu inagu joogay maxamed xuseen jaamac xikmaawi halkii ayaynu ka sii wadan doonaa bal hadda waraysigeennii inagoo qaybaha suugaantaad way ka kooban tahay bal hadba dhinac ka eegi doona aynugu horraysiin ee waxaa jiray gabay ku saabsan dhinaca dhaqamadan cusub ee ku soo kordhay bulshada siba dhinaca aflaanta qalaada aan idhaahdo ee weliba la turjumay oo aad moodid in aad dhallinyaradeennu ay ugu taxan tahay gabay arrintaasi ku saabsan ayaad curisay oo jiray cunaduub ayuu ahaa halkudhigiisu saan filayo bal hadda gabaygaas haddaad inala wadaagto waad mahadsan tahay mawlid maxamed odowaa cunaduub walaal wuu jiray gabaygu waxaan cunaduubna ugu bixiyey iminka qofka haddii labada lugood laga xidho labadii gacmood baa u fuyow aad iyo aad haddii labada gacmood laga xidho labadii lugood baa u fuyow intuu dhaqaaqo odhanaya iga fur bal halkaa cunaha ka warar cuna haddii la iskaga duubo iminka dhaqankii iminka halkaasa lagaga marayey dhaawaca ugu weyn ee dhaqanka soo gaarayna waxa ugu weyn dhaawac ka weyn karan maayo filimadan caasiga iyo la martay ee naagtan hideeda ee ku hadlaysa laba nin bay kanay jecesho kanay dabeetana waxaa ma garanaysa meel baan soo galo dabeetana wax iga iibiya waan ku waa laga iibin waayey dabeetana mar waxaan eegay waxay daawanayeen naag baa saa hadlayso dabeetana meel biyo yaalaba biyo ka bato maasay leeyihiin anna waan fadhiya waxna layma keenin waa taasoo iminkay dhimatayo iminkay isguursanayaan waa nin iyo naag meesha jooga af soomaaliga ku ciyaaraya laba yarana way wataan maasaan dhex gala haddana nayaa isguursanayaan labadana isguursanaya laba yarana oo kuwan yaa dhalay yagaa dhalaye haddana way isguursanay oo kuwan ma hindhistay baan ku markaa dabeetana marna wixii baan eegay marna yagii baan eegay gabaygii halkii baan ka bilaabay kuna dhammaystiray waxaan idhi in dhoweydba gabaygii ma cudhin cududihiisii ma caynaan in maansooyinkii igu carfoonaa waayaha codkaan yeedhin jiray maan carkaaliyin caawana ma curiyana warbaayo cilaal baxay caariyaadka kugu baahayaan cidina dhaadaynin carruurta iyo haweenkaa fusuqa lagu cayuuqaayo carowyada la daawanahaye lagugu cawreeyey cutubyada isdarandooriye naarta ka cabaaya ee aan aqoon caabidiyo diintu celinaynin isyaanka aalada baahiya camalka shaydaanka ee carabka iyo sidii labada daan laysu celinayo iyo ciyaarta lagu waashay baan la cajabaya saqdar xumad maqlaysa wooyo walbaa talyaaniga laga dhaliyey iyo ciyaarta lagu waashay baan la cajabaya waxaa soo cawaasif jirtay iyo cimiladaa suursan na canjilka afkeennii galay baa igaga ciil weyn canjilka afkeennii galay igaga ciil weyn cilmikii lahaa maanta wuu xidhay codkiisii catowgiiyo dhawaaqa waxa caawa iga keenay ee cudurka dhigayna waa hiddaha caynka loo jaray sidii ay curyaan uga dhigeen roobamuu curan daruurihiina caad bay noqdeen shubayii caanaha caydigiiyo dhallaankaa kacee la isku cuna duubay foolxumada caamka u dhacdeen cidina dhaadaynin ciilkaambigoodii baan sidii ceelka buuxsameeyaban waana caamadii iyo dhallaan waxaa ku ciidhaa caqlinimuu ku wen yahay sidaa uma ciiseeyeene codkii muhanadii iyo caasi bay ka cukanaadeen casharada tafsiirka iyo sunnaha kuma caweeyaan cadaabaha naloo sheegayana kama cabsoodaane bal cawaankan eeg daawashada lagu calaameeyey haddaan waalid caynaan iyo culimo loo saarin ciqaab akhriyaba ugu xigay ceeb adduunka ah bal cisyaankan daya faafayaan cidina dhaadaynin bal cawaaqibkaa daya hidaha cadanya rooraya bal carruurtan daya iyo waalidkan aan camal wadaagaynin bal cawaankan daya daawashada lagu calaameeyey intaa markaan idhi ayaa mawlida waxaa yimi afkii oo doodaya oo mar halkan albaabka igu sugay kula waar fariinta naga qaad waxaad naga gaadhsiisaa abwaanadii culimadii dadka ehlu caqliga ehlu albaabka waxaad ku tiraahdaa mar anigoo hargeysa aanoo joogay iyo burco iyo berbere iyo mar haddii ina yaro hindiyada igu hadlayso halkan ku baaba'ay oo lagu helin waayey waan guurayaaye toddobaad waxa ka soo dooratan afka ku hadli lahaydeen markii baan kula bal ii yarkaadiya idinka lafteena imiga hawlaa leediin baa ku jirayey bal ii yarkaadiya uu ila hadla afkii baa calacalay kalkuu tabay ciddiisii ceel dheer guntiis buu galayo meel cidhiidhiya habashuu u soo qoray dalkiiyo curadadiisii kuwa khayrka caabinahayee ku ictikaafaya wadaadada kacankaa dalkiiyo carriga soomaali abwaanadii cibaarada ku qabay culinta suugaanta codkaygaa u gey buu yidhi haygu soo celine codkaygaa u gey buu yidhi haygu soo celine codka dhaqanka loo soo diro oo caabiyaa tahay ceebtiiya markaad foolxumada dib uga soo caagtay eed calanka ii taagtay baan kuu cumaamadae
adigaan bulshada kaa calmaday caawa ii timide culimmada dareen geli wacyiga ha u celceliyeena buuhi cabqariga aftahanyo icraab culus ha dhiibeen callaamka iyo fuqahadu naxwaha ha u cerbixiyeen gaawihii cullaa ha u shubeen gaaf cawaysimay codod iyo haddaan subag ahaa cunaha dhaafayey oo ay oday nabadda caynaaniyay culustu sheegaysay oo aan cudoonaa wax badan waan cardaa duqay inta lay cantoobsaday ayaa lay cuwaafsaday afaan caday lahayn buu faraasigu calaashaa sidii madaqof loo waayey baa sii carjabayaa caaq baa isugu kay hadhiya carogyo shaydaane hindi baan cankoodii geliya caamadii yurube buuhi hindi baan cankoodii geliya caamadii yurub cadaawaha haddaan layga dhicin cantabiyaynaya colaadaan gaboobaynin bayno calamada waxaan idhi codkaygo muddaan kugu cigaallaa muddaan ciilanaayo muddaan kugu cayuuqnaa murdo muddaan ka caago muddaan ceeska daayacay cadceedda iyo suudiga muddaan la cantabiyaysnaaye codsiganba sidaan kaaga qoray caadilkaa garane sidii curada dhalay waxaan intaa ku celcelinayay waxaa labada fidcol mar qula soo cagdhigi waaye inaan gaala kaa celiyo oon kaala carar haddaan si caawa sharaf ku ogahay kuma canaadeene cirdigaaga muu dhaawaceen caada qaatuhuye cidla kuguma tuureen raggii ku cadgoyn jiraye kolihii iyo carwadii aad lahayd lama cidleeyeen turki kaama ceeshan sidii cuudka kuu dhaqay cilmaaniga la duubsaday dhagaa kuma caafuufeene kugumay cayaareen haween muujay cawraduye cadhada iyo mudkaaguna sidii calalma duumeene amaasiirtan kugu hoobataa dheehii kaa cunayabaan haddii maanta aad ciriirsan tahay caynkalaa xigii cuqaaliya abwaaniye rag baan kuu cumaamaday waxba hay caloolyeen intan ciiro kicinayo ha calool xumaan eebbahay baa ku caawinaya wuxuu yidhi cashuura umadayn cabashadiisii war neefkii cadhale xoolahaba waa lagala caagaa cidlaa lagaga oodaa intaad cagaha duubtaan waxaa ciraqa lagu beerayaa caydigii kacaye carruurteenna fiidow sidee looga celin waayey buuhi caddadaan yara inbaa dhibiyo ciriiri saaraa buuhi caasimadda horgeysiya burciyo cogolka oodweyne iyadoo cadiirkii berbere lagu caweynayo yo xoolaha kuu celinayaan caafimaad qabini miyiga kuwii jooga hamaasiirtii waa badan yihiin in cartamayaaye markii caasi la igu soo matlay ayaan ciidda hoos maraya buuhi wixii dhaqanka cawlaana ha markii caasi la igu soo matlaan ciidda hoos maraya canaduubu gabaygaasi ha dood dheerna waa isdhaafsateen adig iyo soomaaliga aynu soo dhaafay maxamedow gabaygaas bal haddaynu hore ugu sii socno barnaamijkeena waxaa isaguna jiray gabay ku saabsanaa dhinaca qabyaaladda litacaarafoodii bay dhan kale ula tallaabeen gabay ay tuduucidiisa ka mid ahaayeen gabaygaasi isagu siduu kugu dhashay walaal wuxuu igu dhashay mawlida waad mahadsanta litacaarafoodii bay dhan kale ula tallaabeen dadkeenu waa caatifi waxbay jeclaanayaan isla markaba iyagoo wixii ma garanaysa marka horena waxba hubsan maayaan dadkaan la hadlayay waxaan idhi waar dowladdu iyo dadka iyo dowladdu waa isku mid dowladda laguu sheegaya waa dadka weeye muxuu madaxweyne maxay gaa qabo maxaa wasiirku ahalka saa u samayn waaye haddaad adigu ma garanaysaa waar waxaan idhi dowladii waa xukuumadii iyo shacboo la isku soo daray dalla waa dhulkii hooyo oo nabad ku daaqdaa diini waa qur-aanka iyo sunnoo laga dabqaataa damiirna waa shucuurta iyo hankood xuma ku diidaaye dumiyaydan iyo dhiskaa doorka wada jooga dabkan aad shidaysad haddana nabadda doonayso wixii hore dabiibka u noqday dacar ku sheegaan maantay ku duulaan ninkay shalayta doorteen waa dhiminkana dib bay uga noqdeen roobabkii da-aye dadka miyaa la marayso kuwii shalayta doonayay baan gabaygan litacaarafuudii bay dhan kale ula tallaabeen qaarnaa u yaqaanan tayo iyo marka hordhac bay ahayd oo anigaa wax isku weydiinayey tixdan litacaarafuudii bay dhan kale ula tallaabeen dadka qaarna tayo iyo qabyaala tayo u yaqaanaan baan tiriyey waxaan idhi in dhaweydba tiigaala gabay waanigaan tirin ma tusmaynin maasooyinkan taadhiyeyn jiray maantana ma tiriyeen hadda xilbaa tuurtay surane tusmada araga dheer bay idhiisabada taabeen bulshadan tafaasiir ka bixin qaabka ay tahaye bal aan tiriya waa muuqataa taawishan rabay waar tagtay iyo timaadaa jirtiyo taaganaan hadhin saddexdaa tilmaamood baa wakhtigana laga tix raacaa tiigsi ma laha arrinkaa tafiyo waaye kaa tegey allow maantabtaa dhahana waa tabani shayddaane waxa talada laga fiirsadaa saakaday tahay toogtow dhashuna wiilmo karo tow ku sii orod hortougu tartiibsaayo baryuu turunturooda tabtaana waxaa ka dhigan dowladnimo loo taqaashamay xusbinimadii lagu soo tabciyey calanka noo taagan tumbusha hoggaanka u sidhin xukunkii soo taab tallaabada horaa lagu xijaa tooda boodada tooraha markii lagu dhucuu tacaabilaa maa waxaa tiixa lagu beegsan jiray kiisa tooxda lehe waa dhoodaan mahmaadaa ka soo qaata waxaa tiixa lagu beegsan jiray kiisa tooxda lehe xaggiinuu tusuus kaga furnaa kii horee tagaye muran baa ku taagtaa ninkii taashka loo xidho tayo iyo qabyaaladina waa waxaan tub isku raacayne toddobaadba muu haysanine tuhunku waa goorma bane ninba takhahuskiisaa dunida loo tixgeliyaa dadkuna taargid buu leeyihiiyo meelu taabaco taariikh madow baa rabtaan inaad tubnaataan dhurwaagoo turaabtaa ka badan taaga wada jooga aar keliya oo taamayaa toos u weerara tawfiiq la-aan bay iyana tamar ku waayaan
dudumuu ku taagtaa abuurkuna taagu leeyahay marunbaa tollaa iyo qabiil laga tallaaba tacaarafudii bay dhan kale ula tallawdeene marunbaa tollaa iyo qabiil laga tallaaba war miyaynaan tilmaamta alleeya xaqa ku toosaynin tabtayeyda miyaynaan marnaba tib isku raacaynin miyaan taariif reer habeen marnaba laga tallaabaynin inkastoo afartaa tilmaamaya ma idhi tala waxaan mooday inkastoo tusaaliya wax sheeg lagula taag waayey inkastoo tasbiixdiiyo wardigiiba la iska soo taagay tegi maysa waanadu dhagaanuba tallaalayne ninta muxuu ka tirayaa dudumo feedhaha taga taxliil inuu ilaahay ka dhiga tabiya aaminta baan xaajada ninkii kaaga togan sii tixgelintiisa waa waxa aqliga taabudkii tamar ku yeeshaa waana quruurux isu tagay buuraha teedsan goonyuhu tabantaabo waxaa kugu filan qaaradaha tegey tacaawino allah kugu filanaya tiirka khaaliqa tabaalana qax baa kugu filanaya tii la soo maray tawfiiq shinaa kugu filanaya tuu aboorfalay carab baa turxaan kugu filan saakasay tahaye litacaarafuudii bay dhan kale ula tallaabeene adduunna waa habeenkaa tegiya maalinkuu timi 7 ayaamood ma jira tiirku saayidi bisha 10 naaqustimi waa tafsiir dhigan waa tiro 9 adduun 10 ma gaadhaan ninka soo tallaabsaday ardiga waa ka tegayaa maraa lagu talaaluxudna waa lagu tartiibshaa xabaalba inta lagu tegtega lagaga tooray taajirkiiyo faqiirkana godkiiyo taalladaa hurane turaabtii lagaa soo unkay ayaa dib u tegaysaaye marunbaa tollaay iyo qabiil laga tallaabay marunbaa tollaay iyo qabiil laga tallaabay waatay marunbaa tollaay iyo qabiil laga tallaabaa waa hagaag waa gabay runtii ka hadlaya had iyo jeer dhaqamada 10 ee qabyaaladda ku taxalluqa sidoo kalena waano iyo wacdi fara badan aad maaragtay ku soo tabisay gabaygaasna maxamedow aynu soo dhaafnay waa sax maxamedow runtii isna in badan bulshada ay ogtahay nin macallin ah tahay wax dhigista iyo macallinimadana way fara badan baa macallimiinta ka soo mara waxa jiray tix aad halkaas ka curisay oo ku saabsanayd dhinaca ardayda waliba qaabkan dambe ee dhalinyaradu ay u labistaan ka hadlaysay tixdaas balayadana waad mahadsantahay mawlid dharka miyaan ku tala cidlo baad iga dhalayshay baa la yidhaayo iskuulkaan ka shaqeeyay nin maamule cabdinaasir dheeg ciise ayaa xigmaawo soo gabayadii wixii tirin maysid ardaydana xagga dhaqankana ayaa ka mas-uula haye wax dhafoor xiiran wax surwaalku ku dhegsayey waxba ma geli karaan sheekadii baa iga cuslaatay dabeetana maalimaha ka mid ah nusaaci baa loo baxay macallimiinta soo nusaaci waan soo noqonay maamulihii baa yimi bee xigmaawo baa leeyahay waa la joogay marka arday baa gudihii galay mid baa galay dabeetana wuxuu yiri maanta xageed qabatad ka tagtay meeshii ama saa ku waan joogay uu dhaafo gudihii buu galay war asxaab mooyee wax kale ma gelin baan ku maanta qarad asxaab moodo mid buu ka soo helay muddo qurac hoosta laga garaacayo waan ka naxay markii meeshu waa dabaqa markii soo waday waa kay dul keenay dhowr horena kiisaska waa lagu qabsan markaasuu igu yiri kan yaa sii daayay markaasaan ku yiri kan inta weegaan ku anigu ma sii deyn kan haddana gudaha ugu soo bixin baan ku yiri timuhu anigu kan ma sii deyn waxaan dadkii ugu dhalay baa kari waayay dadkan aniga ii dirtay gabayga naasir oo dhibtaa igaga daran dheelka aan qaba ee dhirtaaba oyday maantaan timid dhinaca xiireene dhuufinada sidii loo sharayna dhuumashaan ahay annagoo dhafoorkii sariya madaxii dhowrayna oo la sii dhakafaarsan bay surwaalkii nacagaha dhuubeen baan dhakadaanu eegna mise surwaal annagoo dhafoorkii sariya madaxii dhowrayna oo la sii dhakafaarsan bay surwaalkii nacagaha dhuubeen dheehashadii aflaantana xumaa looga dhaadhacay oo dhajis bay xidheen wiilashii dhowrsanaan jiraye shacbigana muxuu dhiidhiyaa waa la dhayluulaaye culimmadu maxay diin dhigaan dheegaga baa dilay dhowr jeerna waxaan kaa codsaday inayna dhaafaan ama waxbay dhigtaan foolxumayna la dhex joogaana baan idhi kuwii aabbahoo dibay ee hooyada dhiigga ka yareeyey taladu dhaafaysay baa meesha lay dhigaye dharka miyaan ku tolay cidluunbaad iga dhaliishaaye baan sidii ay dhashaydii yihiin layga soo dheegay wixii ay dhimaanna anaa lay hor dhigayaa waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan maxamed xuseen jaamac xikmaawi oo waraysigaas suganeed aan la yeeshay toddobaadkanna intaas ayaan barnaamijka ku soo afmeerayaa waana anigoo mawlid maxamed adawaaya iyo dhammaanba bahweynta qalinsoor oo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo